بسم الله الرحمن الرحيم. halkan ubaad heelta kuukan weeye asxaabta ubaad heelta kuukan soo dhawaada. maanta waxaan sameysnay xawaash, laakiin xawaash lama oran karo, waa xawaash oo healthy ah. waxaan ka sameynay 17 geed oo qaarkood ay geedo aad iyo aad caafimaad badan oo qofka caafimaadkiisa wax u taraysa. insha Allah xabad baa uga soo sheekeynaynaa. markaas waa la dalbaday dukaamo xataa iga qaatay. waa wax aan caadi ahayn weeye. markaa cunada aad ku dareyso xageeba ka soo udgiya xagee udaygiisa wad yaabaysaa. 17 geed oo qayb kamid ah meelaha geedaha daawadka lagu gado weeye. sida aan isugu dardarnay iyo xaraan ka sameynay soo dhawaada insha Allah hadii la hayno. intaas ay ka kooban tahay walaalayaalow. xawaashiyadaas iyo dhirtaas iyo kuwa kale oo aad u tiro badan weeye. taas toon weeye. toonta waa la qalajiyay waxa la gashay ovenka. midaasna waa huruud qoyan, iyaduna mid qoyan iyo mid qalan labada isugu daray. hadaa rabtid midaad qalan ku darso halka xawaash dhudhub baa noo yaala. halka kan xawaash waaweyne kaas waa stars weeye mid kala dhaho aad iyo aad caafimaad badan. huruud waa la yaqaan caafimaadkeeda, sinjibiish waa la yaqaan budada ah taasa. tanna waa bay leaf ta iyaduna caadi maahan. halkaasna waa filfil, halkaana waa juice. xulbada cunada dhan lagu darsado iyaduna iyo dhagayare. marka xawaashkan waa xawaash aad iyo aad healthy u ah. dadkiina marka ay arkeen waaba yaabeenba. taas barsali baa la yiraahdaa, waa kabsaro tuman. kana waa toon budo ah iyaduna. toon budo weeye iyaduna guriga ku samaysan kartaa. kaas organa la yiraahdaa, cudurro badan buu daawo u yahay. aad iyo aad u tiro badan. kaasna sage baa la yiraahdaa, cudurro aad u tiro badan buu daawo u yahay. kaasna waa qumbadii budada ahayd. xawaash waaweynaheeni waan awalba aan tusay sinjibiish qalalayd oo taasa. hadaba kaas product ay ubaad health samayso weeye. aad iyo aad dadka ay ula dhaceen oo ay dhaheen ma aan arag hore uma aan arkin. marka haylkii waa ku jira. hadaa tirisid geedahaas qiyaastii 17 geed waaba ka badan yihiinba. marka dhirta ku jirta sida sage-ka, sida maxaan ku raadayay organada, sida thyme-ka, magacyo kale bay anaga inoo leeyahay. hadda thyme-ka kale inuu sactrihan filaya. organaduna waxa weeyaan iyaduna waa dhir kale wadankan iyaduna magac kale waa soo raadinaya magacooda. waxaan sameynayaa mid baan rabaa inaan uga sheekeeyo iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin. haddii cunada lagu daro qofkii intii uu si gaar u cabi lahaa cunooyinkii hilbiyi waxaa ku samaysanaysaa. marka iyagoo gaar yihiinna waxaad ku darsanaysaa shaaha ama cabitaanka ama wax noocaas baad ku qasanaysaa si uu jirkaagu uu u helo fitamiinada u baahan yahay iyo caafimaadka u baahan yahay. markaas cudurradana korkaaga waa ku yaraanayaan. haylka oo kale waa ku darsan kartaa iyo dhirta shaaha iyaguna booska sage-ka iyo organada iyo waa ku dari kartaa. iyada dhinacaas looga dari karaa. marka qofku waxaan qof healthy ah oo aad iyo aad maxaan ku raahdaa iyo gurigiisa aan hargab iyo cudur aysan ku dhacayn. hadaa dhirta ilaahay sameeyo wada daawaadka oo dhan guriga ay kuugu badan yihiin waxa iska deyn kartaa daawada farmashiga taala baa ka raagaysa. soo dhawaada asxaabta ubaad health cooking. waxaana la kulmaysaan waxyaalo faa'iido leh markasta. السلام عليكم.